dumarka weeyaan. You have no idea waxa naga dhaxeeya, ma ogid waxaan isku nahay, ma garan kartiin wixii anaga relationship-kayga iyo noloshayda waxay tahay ma garan kartaa. taleefankayga markaad surgery ku samaysay aad qashay intaasoo kaliya aad heshay, intii baanad mooday inaad wax igu yeeli karto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد أصحاب تقاليد أمريكا استأجرتن وحان رمنا قبر فنان ذا أو عانة أو ليقان أو شلاء أو لقى تبصدي استاب شات كذي لورا أديك سدي وحيابه فورحن سورة ذا قبر ناس يو ننكا حرير كوكا حيو la soo dhigay horta waa wax laga murugoodo laga xumaado qofka Soomaaliduna iskuma ogolo qofku haduu horumar samaysto ama uu wanaagsan yahay ama uu qof ma garanaysa isku kalsoon oo isku filan uu yahay looma ogolo. Marka waxa aan rabaa horta tusmo Safiya tusmo gabar walaasheena waaye Snapchat-keedina waa la jabsaday waliba waxa ku jira adikaadadii gurigeeda iyo dareeskii gurigeeda iyo sharciyadii wiilasheeda. marka tusmo iyadu qofkan wax kala dhaxaya ma aysan sheegin, laakiin reality hadii la yiraahdo qofka waxaan ku kacaya ama sameynaya kullu waa qof iyada iyo qofkan waxaan ku dhaqaaqay kullu wax isku diideen معنيه وحيابها يضي يهدر أمورها اللي جلايو أما تصمو سيدا إيشيغ السوق ولا هاي قفك هدير أن وضع السوق وحنا قد حاليا مؤقدين وح أي صوبنا بندقتي أو تيري نكوان نكيجي وأضاقيجي ما أوسنجرين لكن وحا ديبا بهالكن كانتي عيرتهم بناك كانتي نكن هدير تفصلي Snapchat كذا كل واقف بيسكو دواين حرير لهاين حريركي مركي ومدة السعودي أركي حريف كله وماشي كتير مركا سمو حاليا ولا شيء كل قف رجعه أما ننقه ما يلايو قف أد حرير لذهين أما أوضع سعطان إن أقف كله كارع أما أوكا دار صدو قف كاسو حسامين كرا وحكستو لأدن wax kasta oo marka ku aadan buu sameyn karaa. gabadhaas marka way cabanaysaa waa gabar walaasheena anigu ku taagsan maayo aad baan ugu xumahay dhibaatada loo geystay iyo foolxumada loo geystay iyo wax lagu dhaqmay. hatta sawirada inaan soo dhigo ma rabo, laakiin waxa aan rabaa inaad war dhageysataan waraysigeedii oo u dhacaya sida tan. I don't know what to do Somalia, I don't know waxaan galabsaday ilaa hadda nolosheedii ma garanayo qofaan dhibay. waxaan ku hadlo ma garanayo. hooyanahay ubadkaygii baa daawanaya waxaan ilaa saakay soo garaacay. walaal baan leeyahay, wiilal baan la dhashay, wiilal baan dhalay. macnaha waxa weeyaan waxyaalo waxa jira tuu private oo rabin inay maxaan ku dhahdaa your own child inuu arko iyo walaalka hooyada dhashay inuu arko aanad rabin ayaa jira. waxaan ku oran lahaa hal mar waxaad haysid shayga soo raacay halisa yar yaraysiga way dhaamadaayda hal mar ay dhaafto soo daa adii anigana waa inoo maalinta yoomul qiyaame haddaan nasiib lahayna adduunka isku arkayna ilaa iyo hooyada baan ka talaabsan wallahi. wax kasta waad ka dagaalami kartaa, wiilkaagoo la gowracay xataa waad ka difal celin kartaa, laakiin sharaftaada iyo cirdigaaga iyo karaamadaada marka loo soo dhigto kama dagaalami kartid. I know this inay everyday dhacdo, maalin kasta gabar Soomaali inay ku dhacdo, laakiin adduunyada waxa ugu daran markaad qof bini aadan aroor kasta intaad soo kacdo aad ku soo kacdo inaad qofkaas qof inaad noloshiisa baabi'iso. taas ugu daran. dadka arsaaqad kale way waayeen. maanta aniga waxa weeyaan waxa la igu soo weeraray waa waa karaamadii weeyaan oo sharafteedii maraysaa. 10 jeer baa message la isoo diri jiray, waan maqli jiray in la ii hanjabo, laakiin I didn't know how cool and hateful inuu qofkaas yahay. I didn't know.
hadda wiilkan waaba wiil boo isaga dee nin raga wax lama yeelo laakiin ani isaga waa nin raga soomaali ma nahay only mar walba dhibaatada dhacdaaba dumarka unbay ku dhacdaa nin rago sawirkiisa lasoo dhigo amba naag dhunkanaya amba naag la jooga iyagoo naag kuusanayaaba wax noqonin laakiin waxa dhaawac gaadhan un waa dumarka weyaan you have no idea waxa naga dhexeeya ma ogid waxaan isku nahay ma garan kartiin wixii anaga relationshipka iyaga iyo noloshayda waxay tahay ma garan kartaa taleefankayga markaad surgery ku samaysay aad qashay intaasoo keliyaad heshay intii baanad mooday inaad wax igu yeeli karto ani hadda waxaan ku ooyay waxa weeyaan ilmahayga sharcigiisii oo yaacaya maad aragtay maanta snapchat dhexyaala kama ohinaya ani waxa igu dhacay this is what I did is aniga weeyaan aniga waxaan cuqdad ka qaba maaha because aniga iyo wiilkan relationshipka iyaga iyo wixii naga dhexeeya ma garan kartid kaliyahaatay waxaan beerka i qarxiyay ubadkayga isoo wacaya waxaas daawanaya iyo sharcigii ilmahayga banaan ma aqaano waxaan kuu geysanay maxaan ku dhahdaa aan kaa galnay ma garanayo xumaatada intaa la eg nacaybka intaa la egad qabtidna aanu garan maayo haddaad doonaysid inaad ani ibaabi'iso waxay ahayd inaad ani keligay ibaabi'iso dee waxaad iga hayseed la ordaysa aad maaragtay aad ani keligay la timaado inaad dad kale maxaan ku dhahdaa ay dul saartana ma ahayn oo qof kale ila raadiso inaad isaga inay la baabi'iso ubadkaygana inaad maaragtay maxaan ku dhahdaa aad raadiso ma ahayn alxamdulilah inaanan caruurtayda ku haynin halkaasi sawiradooda iyo wax barayfada ubadkaygu leeyihiin inaanu snaabkaa ku jirin taas waa alxamdulilah social securitygaasi aad meesha lasoo dhigay iyo dareefa lesankaasi shalay baan screenshot ka qaadan caruurtayda u diray maantana waad arkaysaa wax walba waxa igaga daran aniga igaga daran maxaan ku dhahdaa waxa ani igu dhacaya igaga daran sharciga ilmahayga ummadda lala sheergareeye dareemi kartaan social security waxaan u malanayaa tusmo inaad ka bogateen safiya tusmo inaad ka bogateen warkeedii ama qiiradeedii kolle aniga caloosha i hurtay laakiin waxaan u sheegayaa qof kasta oo caan ah ama qof kasta oo ummaddu u raxlayso cadow badan buu yeeshaa cadow badan buu leeyahay haddii aad idinku dee dhallinyarnimadii aad micnihii weli isku haysataan oo weliba micnihii anigu waxaan la yaabay oo anigu aan aada uga xumahay qof weyn oo murwo ah ama saaxiib leh oo sawiro micnihii anshaxumo ah samaynaya hadhowna ka qoomamaynaya walaasha waxaan leeyahay kolley waxaan hadda adiga aad baraha bulshada soo galay waa wax sawir ah wax caddayn ama cay ama aflagaado wax lagu dhimi karana maaha waxaana aada uga xumahay aada iyo aada waxaan uga xumahay dadkan fanaaniinta ah ama dadkan magaca leh ama dadkan la yaqaan waxaa micnihii iyaga ku xiray dad badan ama micnihii saaxiib badan u sameeyey oo rag badan ay wada eeganayaan waxaa ka fiican qof noloshaada u dhiibo qof noloshaada ku xir qofkaas ama ha kula digo ama ha kula badbaado marka walaasha waxaan leeyahay aada iyo aad baan uga xumahay foolxumada kugu dhacday iyo dhibaatada kugu habsatay iyo micnihiisa hadda uga qomameynaysid laakiin hore u dhacday kuwo hataa naaga nimankoodii soo dhigeen baa jira sawiro xun ama anshaxuma laakiin haddeer waxaa loo badinayaa safiya tusmo in uu ninka iyada ay xiriirka ka dhaxayo ama ay wada socdaan inuu ka dambeeyey page in la tabsado snapchatkeeda oo lala wadaago ummadda soomaaliyeed waxaan macnihii aan anshax ahayn ama fiicnayn ama laba qof oo qolkooda jira ama gurigooda jira wax dhex maraya marka waxaan leeyahay hablaha soomaaliyeed oo dhan ka waantooba inaad ninkaaga adiga ku qaba hadduu waddan kala jiro sawir haddaad ugu dhigtid baraha bulshada oo wixii aaladii la jabsado cid ma eedayn kartid cid ma eedayn kartid adiga is eeday adiga ka dambeeyey waaba ninkaagii waa saaxiibka waa jeceshahay macnihii dadka ku raadinaya bahalkii ninkaaga asawir u dirta wax isdhaafsateen wallaahi aadan uga xumahay hadhowna qoomaynaya marka qoomada hadda ka digtoonaada ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay ragow dhawayna dhasheen oo walaalihiin waa hooyadin micnihii maaha gabar soomaaliyeed inaad magac ku raadisid
caydeeda ama views ku raadisid ama xumaan ku raadisid aad baa idin salaamaya meel kasta jirtaan waa idin jeclahay caawa intaa yar baa idin soo gudbinaya walaasheena aad iyo aad baan ugu xumahay dhibaatada ku habsatay ama ku dhacday I love you baa idin leeyahay meel kasta